السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. waxaan muuqaalkan ku soo qaadan doonaa taariikh nololeedka iyo heerarkii uu soo maray farshaxan-yaqaankii Isbaanishka ahaa ee lagu oran jiray Francisco Joses de Goya. wuxuu ahaa farshaxan-yaqaan hal abuur ah oo caan ka ah isla markaana ka mid ahaa saynisyahanadii waaweyn ee farshaxanimada ee Isbaanishka. Francisco Joses de Goya wuxuu ku dhashay meel u dhow Saragossa ee Aragon sanadkii markuu ahaa 1746 Maarso. aabihiisna wuxuu la sawir qaaday tacliinta farshaxanka rasmiga ah ee Goya. wuxuu bilaabmay markii uu jiray da'da 14 sano isla markaana baranayay farshaxanka. sanadkii markuu 1763 Goya wuxuu aaday Madrid wuxuuna ka shaqayn jiray farshaxan-yaqaan ka soo jeeda Aragon oo la yiraahdo Francisco Bayon, taasoo ay walaalo ahaayeen aabihii. sanadkii markuu ahaa 1771 Goya wuxuu booqday Talyaaniga markay ahaydna 1775 wuxuu degay Madrid wuxuuna nashqadin jiray warshadihii Royal Tipesta. sanadkii markuu ahaa 1786 waxaa loo magacaabay sawir qaadaha maxkamadda Charleski afraad. xilligii soo koritaankii jiilalkii 1792 Goya wuxuu si xun ugu bukooday oo uu xanuunsaday wuxuuna noqday mid dhagala. tani waxay ahayd isbeddelka xirfadiisii sawireed waxaana loo bedelay qaabkiisii la rikood gareeyay ee ugu horreeyay aragtida muuqata oo muuqaal leh waxaana loo rogay in mawduuc uu qaato wuxuuna ahaa mawduucii oo qaatay mawduucii madooba. intii uu socday xasuuqii Napoleon ee Faashxuma ee ka socday Spain, Goya wuxuu gacanta koowaad ku sawiray argagaxa dagaalka. kalina waxay dhiirigelinaysay saxanaha ah musiibooyinka dagaalka iyo mar labaad sawiradeeda. 2 May sanadkii markuu 1808 ilaa 3 May 1808 qiyaastii sanadkii markuu 1820 Goya wuxuu bilaabay saxana ah in uu derbiyada dalka Madrid u dhow uu ku sawiro sawiradii madooba. sanadkii markuu 1824 kacdoonkii siyaasadeed ee ka kacay Spain ayaa ku qasbay in uu Goya ka masaafuro dalka Spain una masaafuro Faransiiska wuxuuna ku soo noqday muddo gaaban gudahood dalka Madrid. sanadkii markuu 1826 balse wuxuu geeriyooday 16 Abriil 1828.